goobtii uu tagay telefoon u soo dir waa ku imaanayo waxa loo soo diray marka eedeysanay labaad oo bastooladii wato jilbihii dhulka u dhigay xeeto waxa ku dhacay shirkool sinaantaas telefoon iPhone wata qofkaas oo khaad markuu wiilashii markii meesha ugu bilaabay oo maday oo aan telefoon khalnaa saddex laba wiil kala socdo oo feekood markaas sidoo kale hal wiil saarnaa saddex marka inaan noqdana arkay saddexdooda telefoonada qaad wiil kala markuu soo maray wiilkii aan soo qaad sidaas ah ku dhacay marka maadaama uu soo hoynaay xaafad u soo hoynaay isku xaafad la daris leeyahay wuxuu yiri hore ugu soo qaad jalaataas hore ugu keen kadib xaafadii ku balamay waa yimid dhibanaha iyo laba qof oo la socdo mid motofaykon wada in kale la socdo uu wacay wuxuu yiri waa joogahay ku aaw wuxuu yiri maya ma joogi meeshaas meel qaldan ku sheegay meel kala tag oo masaajid ku agyaal iyo dugsi quraan goobtii uu tagay telefoon u soo dir waa ku imaanayo waxa loo soo diray marka eedeysanay labaad oo bastooladii wato jilbihii dhulka u dhigay wuxuu ka qaatay telefoonadii ay wateen targetka marka muxuu ahaa targetka wuxuu ahaa iPhone ku ahaa nin kale asagana dhalinyaro oo shacabaha jiray telefoon ku hadla ku soo dhaxdhacay asagana waa laga qaatay markuu fiiriyay telefoonadii marka iPhone-kii kuma jiro maxaa yeelay dhibanaha laba isku watay iPhone iyo wuxuu watay Samsung ku dhiib iPhone-kii lidu ku watay mudan gudoomiye uu ku noqday mar kale wuxuu yiri iPhone-kii soo bixi baaris labaad ku sameeyay iPhone-kii ka helay macnaha qof target ah oo wax loo soo sheego wax u socdo ahaa ninkii cashada u diray oo Haashim ah wiilashii meeshii ugu ballameen u joogo 15 daqiiqo ka bacdi iyagoo iska soo dhaqaaqay oo ugu yimid على كمين iyo saligan uu xaasho ugu soo aan weydiin cashada oo u dirsaday inuu aan weydiin كلمات اسمها كيسير أنا هاشم الطومي هاشم نوصوق فعلا إنك صدق بالشاكين أنا تصدق بالشاكين هاشم نقوم الدبل دفرات منا موجل لا يجرون له ويجرون وشة وأنا أبرر كل يوم أنا أبرر إنه نعاسني بالكريستال لأنه ولا تصدق أنا أعرف شيء كلها أنا كان أساس أشرب وبناشر telefonkii loostii loo diiwaan galiyay marka loostii la diiwaan galiyay marka iPhone-ka fariinu inta soo saara qaybta hore uu leeyahay telefonkan waxa loo diiwaan galiyay inuu lumay saa darteeda fadlan la soo xiriir lambarkan gudaha uma gali kartid marka password-ka ma gali kartid automatic waa xiran yahay markay caqabadaas qabatay waxa lagu fikiray in dalka dibadiisa loo qaado la soo jibiyo dalka dibadiisa loo qaaday Uganda la geeyay kadib inta lagu maqnaa processkaas ayaa la soo xiray shirkadii qaraxday kadibna telefoonkii baarisa lagu keenay waa la soo celiyay waxaan rabaa inaan maxkamadda u soo gudbino telefoonka iPhone 14 Pro Max oo la soo celiyay oo shirkada ka bilaabatay iPhone-ka shirkada ka bilaabatay waa kana sidaa darteedu telefoonkiisa ku badbaaday dhibanaysa mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maxkamaddu waxaan u soo gudbinay qiraaladii eedeysanayaasha oo garsoor ka hor qirteen waxaan sidoo kale maxkamadda u soo gudbinay bastooladii dhac lagu geystay waxaan sidoo kale maxkamadda u soo gudbinay telefoonkii iPhone-ka ahaa oo sheekada ka bilaabatay oo dib loo helay kadib markii lost lagu xiray kadib sidaa darteed maadaama uu eedeysanaha koobaad riski u geliyay nafta saaxiibkiisa dariska uu ahaa oo bastoolad xabad ku jirta u dhiibay qof shacab ah oo yiri iPhone-kaas noogu soo dhac oo riskigaas uu geliyay waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku qaado qodobadan ku soo eedeynay oo ah 484 iyo qodobka 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale eedeysanaha labaad isagoo shacab ah ayuu bastoolad qaatay dad shacab ah ayuu khalkhal geliyay waxa laga yaabay qaarkood inay xanuunsan yihiin oo xanuuno ay qabaan riskigaas uu sameeyay telefoon uu dhacay waxaan maxkamadda aydan ka codsanaynaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeynay maxkamadda waa maasanta